kulankan dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa lagu gorfeeyay arrimaha masiirka jiritaanka go'aansashada Soomaaliland iyadoo la isku duuban yahay sidii loo muujin lahaa danta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkeeda. waxa kale oo kulanka lagu lafaguray arrimaha qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee ku soo waajahan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland horaanta sanadka soo socda ee 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kulankan ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seylici محمود ورسمة جامع عفينك مدحونها جمهورية الصوماليلاند أيام مركي كلن كاسي دمادي ورباهنتا u sharaxay qodobada laga wada hadlay kulankan dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid iyo wadani madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga oo mudnaanta koowaad siinaya midnimada asxaabta qaranka iyo xukuumadda si loo muujiyo mabda'a qarannimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta kulan kula qaatay xafiiskiisa labada gudoomiye xisbi ee mucaaradka ee u ciidiyo wadani mudane Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro ujeedada kulankan oo daaranayd sidii meel looga soo wada jeesan lahaa danta qaranka Soomaaliland waxay labada gudoomiye xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha Soomaaliland isla qaateen inay lama taabtaan tahay jiritaanka go'aansashada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayna meel uga soo wada jeedaan gifka iyo gardarrada siyaasadeed ee ka soo muuqanaya dalka Soomaaliya kuwaas oo salka ku haya jiritaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ee u ciidiyo wadani waxa ka go'an meelmarinta siyaasadda guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland iyo labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka waxay ku baraarujinayaan shacabka Soomaaliland in ay difaacaan qarannimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo qaatay muddo saacada waxay kale oo isla lafagureen madaxweynaha Soomaaliland iyo labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ahi dardargelinta iyo diyaar garowga doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadda 2019 horaantooda ku soo foolay Soomaaliland iyagoo isla gartay in la hawlgeliyo gudiyadii arrimaha doorashooyinka u xil saaraa ee saddexda xisbi qaran madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha xisbiyada qaranka waxay isla garteen in la joogteeyo kulamada wada tashi ee lagaga arinsanayo arrimaha qaranka Soomaaliland kulankani wuxuu ku soo dhamaaday guul iyo is-afgarad buuxa jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaheeda ku saabsan jiritaanka iyo go'aansashada Soomaaliland waa mid muqaddas ah oo shacbiga reer Soomaaliland ay ka go'an tahay inay noqdaan qaran madax bannaan oo kamid ah dalalka ku yaala caalamkan aynu ku noolnahay xisbiyada mucaaridka xukuumadda talada haysa iyo guud ahaanba siyaasiyiinta ee qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland way ka midaysan jiritaanka qarannimada Soomaaliland iyo in ay difaacaan Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland